825 aqoon-yahan ayaa maanta ka qalin badashay jaamacadda New Generation dafcaddii tobnaad ee ka baxda kuwaas soo bartay culunta kala gedisan ee jaamacadda New Generation bixiso waxaan weydiin doonaa qaar ka mid ah aqoon-yahanada Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu bartay dareenkooda ayaan la ku soo dhaw dareenkaaga waa sidee maanta aad baad saaxiib maasan tahay runtii maanta waa maalin ka duwan maalimaha kale waa maalin noo rumooday mid ka mid ah hadafyadii waxbarasho aan lahaa dhammaan waxaan amriyay kumanaanka qof ee maanta ka qalin jabinay jaamacadda New Generation ee gobolada Gabiley iyo Hargeysa iyo Sokol Burco oo dhammaan lay saaxiibeel inta qalin jabsan maanta ka mid ah waxaan leeyahay hambalyo ilaahay cilmiga iyo aqoonta aan baranayna ee haynagu anfaco waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa shaqaalaha wasaaradda warfaafinta oo qaar ka mid maanta ay ka qalin jabinayaan jaamacadda New Generation oo lay saaxiibayaan waxaan haydna dareebanay farxad wada la qaybsanaya waan mahadsantii dhamaantiin timaha wakaaladda wararka Soomaaliland ee Sona Cabdi Casiis Caydiid Yamani soo dhaw dareenkaaga Cabdi Casiis khadar aad baad u mahadsan tahay adiga iyo Cabdi Cumar Jibriil baan u mahadnaqayaa maanta waa maalin weyn waa maalin farxadeed waa maalin aan soo gabagabeynayo hayaan waxbarasho oo muddo 3 sanadood soo socday kaasoo maanta la gaaray halkiisii ugu dambeysay ama base maanta guushiisa aan taaganahay waxaan jecelahay in aan u mahad celiyo cid kasta oo gacan ama door ku lahayd guusha maanta aan gaaray waxa ugu horeeyay waalidkay waxa kale ku xigta xaaskayga waxa kale oo ku xiga maamulka iyo macallimiinta jaamacadda New Generation oo tacafar badan la geliyay isla markaana sabab u ahaa in maanta halkan aan soo gaarno anigu waxaan ka qalin jabiyay qaybta Human Resource Management and Leadership ee jaamacadda New Generation insha Allah waxaan rajaynayaa in qaranka iyo dalka aan ku anfaco cilmigaas aan soo bartay waxaan ka mid ahay ardayda ka qalin jabinaysa jaamacadda New Generation gaar ahaan kuliyadda Human Resource Management and Leadership magacayga waxa la yiraahdaa Axmed Cali Maxamuud waxaan ka qalin jabiyay fakalka FBE Department of Human Resource Management dareenkayga haddaan ka hadlo aad iyo aad baan maanta u faraxsanahay waxaan ka qalin jabiyay kuliyadda maamulka iyo maareynta mashaariicda taasi oo aan soo waday muddo 2 sano waxaan maanta hambalyo u dirayaa dhammaan classmateskaygii macallimiintaydii iyo familkayga intii muddadaas isoo garab taagnayd waxay soo bartay in nidaam wal oo aan maanta halka ku soo gaadhay intee wax la qabatay magacaygu waa Cabdi Cali Maxamed waxaan maanta ka qalin jabiyay kuliyadda Master of Project Management taasoo ilaahay suuro galiyay waxaan xaggan uga hambaleynayaa online dhammaan ardayda Soomaaliland iyaguna ila midka iga horeeyay xaggan ka qalin jabiyay kulligeen hambalyo maanta aad baan u faraxsanahay ilaahay baa mahad leh farxadan oo kale igu simay muddo 3 sano ah ayaa jaamacadda New Generation ka baranayay barashada siyaasadda iyo xiriirka caalamiga waan ku faraxsanahay maanta soo gaadho juhdi badan iyo waqti badan iyo dadaal badan iyo maxay waxyaabo badan oo isbiirsaday ayaa sababay ilaahayna uu noo suurta galiyay walaalo inaan maanta soo gaadho waxaan jeclahay ilaahay ka sukow inaan u mahadnaqo dhammaanba familygayga waalidkay walaalahay dhammaan familygaygu intay leeyihiin waxaan kaloo jeclahay inaan u mahadnaqo dhammaanba shaqaalaha ila shaqeeya oo iyagana maxay hiday garab iyo gaashaanba yahaa iyaga familygaygu midkoodna waxa ma noqdeen iyaga la'aantood asxaabtayda ayaan iyagana u mahadnaqayaa meel kasta ay joogaan waxaan jeclahay inaan u mahadnaqo bahda jaamacadda New Generation oo ugu horeeyo gudoomiyaha jaamacadda walaalkay Cabdi Waasac gudoomiye Cabdi Waasac oo isagana leeyahay waan ku faraxsanahay oo kugu hambalyeynayna maalin walba midhaha soo saaraysid iyo dadaalka aad wadid iyo anagu intii aanu maxay heeday shaqaalaha ka socda wasaaradda warfaafinta intii aanu jaamacadda New Generation maxay heeday dhiganaynay oo gudoomiye Cabdi Waasac uu si fiican noola shaqeeyay ku-xigeenka agaasimaha waaxda wararka Soomaaliland ee Sona Khadar Nuux Yoonis khadar ku soo dhaw dareenkaaga maanta waa sidoo aad baad u mahadsantahay khadar dhammaan waxaan hambalyeynaya ardayda maanta ka qalin jabinaysa jaamacadda New Generation oo ah dufcaddii tobnaad jaamacadduna ay 14 jirsatay taasi waxay muujinaysaa in hayaan dheer loo soo maray taasi ardayda 825 kana waxaan leeyahay hambalyo ilaahay cilmigeena nafacaha ka dhigo ayaan leeyahay dhamaantood waana mahadsantahay walaalo aad iyo aad baad mahadsantahay oo kaaga mahad celinaya adiga Cabdi Cumarba kamerman sare inaad naqiimaysaan oo maanta aad nagala qayb qaadataan farxadda aan ugu dabaal degayno shahaadada heerka labaad ee masterta oonu sanadkan 2022 aanu ka qalin jabinay jaamacadda New Generation faraceeda guud ama xarunteeda guud ee magaalada Hargeysa annaga Khadar Nuuxba waxaan ku qalin jabinay kuliyadda xiriirka caalamiga ah iyo siyaasadda
waxaan doonaynaa insha allah inaan noqonno safiirada dalka insha allah ee berri haddii aan la idhaa maantaba inkastoo nahay haddana rajada iyo hoggaaminta siyaasadeed nagama madna cilmigeediina inaannu baranno oo nishaadadeedii qaadanno berrina si baractical oo si toosa runtii aan muxuu ahaayey uga dhabayno oon ugu shaqayno ayaan rajaynayaa aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay inaan halkan soo gaadho waa runtaadoo maaha qalinjibintaydii aniga koowaad iyo labaad waa taydii saddexaad 2 digriyo hore ayaan haystay oo midna ahaa sharciga midna ahaa saxaafadda kana waa xiriirka caalamiga iyo siyaasadda waana mastertaydii waanan ku faraxsanahay waxaana jecelahay insha allah inaan waxbarashada sii xoojiyo oo halka maanta aan marayo meel ka sii sarreysay insha allah aan gaadho waa khadar maxamuud axmed iyo cabdi cumar jibriil telefishinka qaranka jamhuuriyadda somalilan caasimadda hargeysa